cashirka u imaana marka waxaa maanta meesha noo yaalo 3 eray kulli eray kale oo ku dari doonaa oo kulli 3 eray isku wada dhow yihiin laakiin kala isticmaalida cashirkuna wuxuu xigi doonaa insha Allah 2 eray kala jiri doonta ayagana isku eg laakiin kala isticmaalida siiba marka Soomaali ahaanta loo isticmaalayo mis waxaas aad dhihi rabo marka af Soomaali loo bedel labada hadii laba jumla qaato af Soomaali u bedel laba jumla kale noocan ay lahaanayaan laakiin eraysa isku dhow yihiin tazama ona iyo angalia tazama maxaa waay ona maxaa waay angalia ne maxaa waay tazama iyo angalia kimaana hatuwezi tunaweza sema kimaana ni sawa au yanakaribiana kimaana tazama iyo angalia wa isku dhow yihiin mise isku lakini kwa matumizi kidogo tofauti tujaribu kuzingatia tazama na angalia ona kidogo tofauti bali na tazama na angalia eray kala marka hadar doona inshallah watoto tujaribu kuzingatia sentensi yafuatayo tafadhali haswa kimaana erayada si fiican iska fiirina macna ahaantooda watoto wanatazama runinga watoto wanatazama runinga watoto carruurta wanatazama waxay daawanayaan runinga TV leo maanta nilikuona waxaan kugu arkay kwa uwanja garoonka ayaan kugu dhex arkay kwa nini mbona unaniangalia maxaa iga fiirinaysaa saddexdooda hal u kala macneena marka hore sababta u dhahayna tazama iyo angalia way isku dhow yihiin aan sheegno ona waa aragti koow waxa badan tazama waa daawasho ona waa aragti angaliana waa fiiris angalia markii tazama xogaa isku dhow yihiin waxaan dhihi karaa watoto wanaangalia runinga iyo wanatazama runinga labadaba waa dhihi karaa laakiin marka daawasho aad dhehayso Soomaali ahaanta marka la macneenayo labadaas jumlo waxaan la daawanayo waxa ku haboon in isticmaasho tazama fiiriskana waxa ku haboon angalia ona waaba gooni iska dhaaftaas aragti caadi ah maxaa u dhahanaa marka saddexdan eray misisiiba angalia iyo ona xogaha waxay keenaysaa fahanka mise hadalka jumlada xogaha dib ay keenaysaa qofa arkay rabo inuu dhaho waa ku jeeda mise waan ku arkaa kwa mfano unataka kuona mtu unataka kupatana yani isticmaal erayga ona wacha nitumie neno kitenzi kingine unataka kupatana na mtu kuna mtu unataka kumpata sehemu fulani unakuta mtu anaongea na mtu kwa simu anampigia simu anamwambia baada la kusema ninakuona simama papo hapo na kuona unapata mtu anasema na kuangalia qof rabo inuu dhaho waa ku jeedahay meesha taagnow waa ku jeedahay meesha taagnow wuxuu dhahaa waa ku fiirinahay meesha taagnow haswa wale wanajifunza Kiswahili dadka xogaa hadda Swahiliga baranayo kale abadana erayas isdib mariyo waa ku jeedaa iyo waa ku fiirina laba kale yihiin tunapatana waan ku jeedaa meesha taagnow nina kuona waan ku jeedaa waan ku fiirina dad taas sheeka kale waa ku fiirina marka xujada meesha taala waxay tahay ina angalia iyo ona hal jumla ku dhex isticmaasho bas baan maleyna just isku day ina comment ku soo qorto ona iyo angalia hal jumla ina isla geliso waa ku soo celina ona iyo angalia hal jumla ku dhex isticmaasho isku day jiridin ina bilaabatiin insha Allah ha hata online ka hata schoolka sida uu rabto ina wax barato mise luqadda uu barato waana la soo xiriiri kartaa insha Allah mar walbana waa isku dayana ina idinka caawino
dhinaca Swahiliga. Marka ereyga kale yaanan hilmaamin ereyga kale aan ka hadlayo waxa waaye shuhudiya. Rasfahna umalena shuhudiya. Ereygan shuhudiya macnihiisa maxaa waaye? Hebel iyo hebel ama aniga iska hadlayo nimeshuhudia, nimeona na nikasikia. Nimeona kwenye macho, nikasikia kwenye sikio au masikio. Wewe umeshuhudia kitu fulani, inamaanisha ulikuwa tokeo ambayo kwamba kilijitokeza au kitu ambacho kwamba kilitendeka, kiwe ni vita, kiwe ni wizi, kiwe ni mchezo, kitu chochote kile ambacho kwamba ulikuwepo wakati huo ukifanyika, umejaribu au uliweza kushuhudia tukio hilo. Marka shuhudia wa marqaatiya ka ahayo kala waa arkay indhaha ku arkay, nilishuhudia marqaatiyan ka ahay, waa arkay waxaas. Marka waxa shuhudiyeysay aanan ficilada isku daya ina idin kala fahansiyo. Waxa shuhudiyeysay waxay la mid tahay waa qasab inay ahaadaan waxa oonaysay. Waasbahna umalena waxa aan galiyay ma waxa fiirisay laga yaabo waxa ina fiirinay aanan arkin. Qofa wuxuu dhahay mise macquul ku tahay ina wax fiiri aanan arkin. Kwa mfano tusaale ahaan in meela wax ka fiirina laga yaabo meela nabar kaaga yaalo, meeshaan nabara kaaga yaala lagu dhahay ka fiiriye keen meeshi waa fiiriye laakiin uma jeedi nabarka ma arkin. So kitu ambacho kwamba umeshuhudia lazim waxa laga rabaa in ahaadaan waxaad aragtay oo indhahaada ku aragtay ama maqashay xaqiiqda meesha ka dhacday waxa ka dhacay waxaas hebela arkay markaa dhaheeno waxa leenahay ama shuhudiya. Cashirkana meesha ayaa kusoo gabagabeynayna wixii su'aalo u baahan tahay waa soo weydiin kartaa. Waxaa kaloo dhahnay su'aasha hilmaamin su'aasha meesha ugu tagnay oo laga rabo in laga shaqeeyo. Isku day ina isticmaasho ona iyo angalia kwa sentensi moja. Ona iyo angalia hal sentensi ku isticmaal. Wabillahi